Asalaamu calaykum asxaabtayda maanta aad umurugsanahay wax kalena ma ahan waxaan arkay muuqaalada dhacdada argagaxa badan leh ee ku dhacday gabadhan masaakiinta idiin muuqato oo la dhaho Hodan Xaashi. Hodan waxay deganeed wadanka Canada. Habeenkii Sabtiga la soo dhaafay ayaa iyada iyo haweeney aanan lagu tilmaami karin bini'aadan ee ah midan idiin muuqato ay ku dagaalameen meel night club ah. kadib naagtan ayaa waxay soo qaadatay dhalo oo way kala jebisay dhaladii. Markaas ayay ku soo weerartay Hodan dhaladii ayadoo si aad iyo aad u arxan daran ula dhacday dhalada Hodan. Markii koowaad ayay kala haleeshay dhuunta. Hodan markay dhulka ku dhacdayna dhaladii ayay la sii dhacday ilaa dhowr iyo 10 jeer ilaa ay Hodan naf dhacdo. Goobjoogayaasha meesha joogay ee arkaya dhacdadan waxashnimada leh ayaanan u gargaarin Hodan maadaama ay ahayd gabar madow ah midan wax dilaysana ay tahay gabar cadaan ah. Ficilka kaliya ee suubiyeen dadkan ayaa wuxuu ahaa inay ka duubaan video dhacdadaas foosho xun ee lagu jarjaray gabadhan masaakiinta ah dhalada. Booliska Canada ayaa waxay ku tilmaameen arrinkan foosho xun dilka darajada labaad kaasoo la jeedaan inuu ku dhacay qaab shil ah. Waliba waxay soo jeediyeen inay Hodan ku kor dhacday ayada dhalada ee nasaa ku soo gaar dhaawaca halka muuqaalka laga duubay gabadhan dilayso Hodan la arkayo gabadhan cadaanka ah ama naagtan waxashka ah oo sida foosho xun ula dhacayso dhalada Hodan taasoo ah wax aad iyo aad looga argagaxo oo lagu tilmaami karin dil ku dhacay shil. Sidoo kale warbaahinta Canada oo diidan qofkan waxashka ah sida foosho xun wax ku dilay inay tahay gabar cad ayaa u baahiyay dhacdadan inay tahay shil dhacay oo ka dhacay gabdhaha ayagoo sheegay in labadan gabdhood ay hore isku yaqaaneen ayagoo waliba isticmaalayo masawir qurux badan oo ah haweeneydii waxashada ahayd ay disho Hodan si ay u qariyaan dhacdada waxashnimada leh oo ku dhaqaaqay qofkan cadaanka ah. Are you kidding me, Canada? Are you kidding me right now? There's a graphic video of this. I refuse to call her a human because what she did to her was inhumane. But the video shows this unaliving her with a piece of glass. Now, when they arrested her, they charged her with unaliving in the 2nd degree. But then they changed it to manslaughter, saying that she fell on a piece of glass, which was total bullshit because you could see in the video her striking her repeatedly with that piece of glass. And what makes the matters worse, this is the picture they chose to post of her, saying that she loves the outdoors, she enjoys nature. Yeah, they forgot the part where she enjoys unaliving Africans. To the people of Canada, remember the statement we made when they unalived George Floyd? Yeah, I highly suggest you do the same if they stick to that manslaughter charge.